waxaana hay nasiibuhe بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميلو البوندقال السعودان halkani waa wacaal media isu soo noqod wanaagsan iyo barnaamij hor leh oo cusub ku soo dhawaada xalqadii afraad ee barnaamijkii aynu uga hadlaynay saldanadii ajuuraanka horumaradii iyo tallaabooyinkii la mahadiyay ee ay hore u qaaday hadduu alla ma yeedhin xalqadeena afraad caawa waxaynu ku eegi doonaa dagaalkii ay la galeen dowladii weyneed ee caalamka markaasi hogaaminaysay ee ahayd Boortaqiiska waxaana hay nasiibuhe dowladda Boortaqiiska ayaa waxa ay ka mid ahayd xilligaasi dowladaha ugu quwadda weyn ee caalamka hogaamiyo ayadoo wadamo fara badan oo geeska Afrika ku yaalo iyo waqooyiga Afrika gacanta ku hayday haddaba aynu in yar dib ugu laabano quwaddii iyo habkii militariga dowladda ajuuraanka ay ahaayeen waxaana hay nasiibuhe dowladda ajuuraanka ayaa waxa ay lahayd military quwaddiisa ay aad u weyn tahay kuwaasi oo ay hogaaminayeen dad khibrad dagaal leh dadkaasi ayaa waxa ay ahaayeen kuwa daacad u ah dowladda sidoo kalena ay ka go'need in horumar laga gaaro dagaalada ay la galayaan cadawga dowladda ajuuraanka waxa ay lahayd sidoo kale ciidamo boqolaal kun gaaraya oo la yiraahdo mamaalik kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dad la soo iibsaday ayagoo adoomo ah balse markii dambe la xoreeyay dadkaasi la xoreeyay ayaa waxa ay ahaayeen dad daacad u noqday dowladda ajuuraanka ayna ka go'need in horumarada laga sameeyo dagaalada lala galay cadawga ay noqdaan kuwa taabagal ah sidoo kale dowladda ajuuraanka ayaa waxa ay ahayd dowlad carbiyeysa ciidamo fara badan sanad walba sanadka ka dambeeya iyadoo ku xisaabtamaysay in dagaalada cuslaanaya ee geeska Afrika ka socda ay saameyn ku yeelan karaan maamulkeeda dowladda ayaa sidoo kale ciidamo waxa ay ka qoratay dad asalkooda ay ka soo kala jeedaan Carab, Iiraaniyiin iyo Turki kuwaasi oo deganaa qaybo badan oo ka mid ah dhulka ay xukumaysay dowladii ajuuraanka haddaynu eegno hubka iyo saanada military ee ay dowladdu haysatay waxa ay ahaayeen inta badan kuwa ku salaysan hubkii caadiga ahaa ee dadka Afrikaanka ah ee ay haysteen kuwaasi oo isugu jiray seef waramo mindiyo iyo sidoo kale faasaska iyo qaanse iyo leeb sidoo kale dowladda ajuuraanka ah iyadoo ka duuleysa casriga cusub ee markaasi dowladaha quwadaha adduunka hogaaminayay ay haysteen ayaa waxa ay heshiis la gashay dowladii Cuthmaaniyiinta ee ka talinaysay wadanka Turkiga iyadoo heshiis kula gashay inay u soo dhoofiso oo dowladda ajuuraanka la siiyo hubka casriga ah ee lagula dagaalamo cadawga dowladda Cuthmaaniyiinta ahayd ka jirtay wadanka Turkiga ayaa waxa ay dowladda ajuuraanka u soo dhoofisay hub fara badan kaasi oo ka soo degay magaalada Muqdisho hubkani ayaa waxa uu isugu jiray madaafiic iyo sidoo kale qoryaha loo yaqaan shimbiraleyska ama lixlaha ah dowladda Cuthmaaniyiinta ee ka talinaysay wadanka Turkiga ayaa sidoo kale waxa ay ka go'neyd inay caawiso dowladda ajuuraanka taasi oo ay ku muhanaysay inay garab ka siiso sidii looga reyn lahaa cadawga ku soo duulay qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika kuwaasi oo doonayay dhulalka muslimiinta ah iyo sidoo kale dhulalka Afrikaanka kale ee haystaan inay qabsadaan oo ay xukumaan dowladda Cuthmaaniyiinta waxa ay Soomaaliya u soo dirtay fardo militariga ay isticmaalayeen kuwaasi oo ahaa kuwa aad u tababaran aadna u dheereynayay kuwaasi oo lagu ilaalinayay xuduudaha dowladda ajuuraanka sidoo kale waxa ay u sameysay ciidamadeeda guuto kuwaasi oo ay hogaaminayeen rag la magac baxay amiir waxayna ahaayeen kuwa gaaf wareega dhammaan xuduudaha dowladda ajuuraanka ay leedahay haddaba dagaalkii ugu cuslaa ee ay la galaan shisheeye ayaa wuxuu ahaa dagaalkii lagu hoobtay ee dhex maray dowladda ajuuraanka ah iyo Boortaqiiska dowladda Boortaqiiska ayaa waxa ay ka mid ahayd quwadaha reer Yurub ee ku soo duulay qaaradda Afrika iyagoo doonayay in ay Afrika ka helaan shaqaale iyo sidoo kale hanti fara badan oo ay ka arursadaan qaaradda waxaana hay nasiibuhe qarnigii 17aad ilaa qarnigii 20aad dowladda Boortaqiiska waxa ay ka mid ahayd quwadaha
caalamka xukuma ayadoo geeska Afrika ilaa muddo fara badan gacanta ku haysay qaybo fara badan oo ka mid ah. Dowladdan ayaa waxa ay gacanta ku haysay dhammaan koonfur bari magaalooyinka ku yaala geeska Afrika oo ay ka mid tahay magaalada Kilwa, Mombasa, Malindi, Bate iyo sidoo kale magaalada Lamu oo dhammaantood hadda ka kala tirsan wadamada Tanzania iyo Kenya. waxaan ahay nasiihuhe waxaan ahay dowladda Boortaqiiska markii ay qabsatay magaalooyinkaasi waxa ay dhammaan mamnuucday ismaamul hoosaadkii ay lahaayeen dadka Afrikaanka ah ee ku noolaa magaalooyinkaasi. waxa ayna ku amartay in shaqo xoog ah ay u qabtaan dhammaan dowladda Boortaqiiska. sidaasna waxaa meesha ugu baxay xurriyaddii ay haysteen magaalooyinkaasi. ciidamada Boortaqiiska ah ee ku soo duulay geeska Afrika waxaa hogaaminayay nin la dhihi jiray Tristão de Canta, kaasi oo ahaa nin dagaalyahan ah, khibradiisa dagaalna ay aad u sareysay. dowladda Boortaqiiska markii ay qabsatay magaalooyinkaasi waxa ay isku dayday in ay qabsato dhulka Soomaaliyeed ee ay ka talinaysay dowladdii Ajuuraanka, laakiin mahadi ha ka gaartee hogaamiyaashii dowladda Ajuuraanka ayaa waxay u babacdhigeen dagaalkii ay soo qaaday dowladda Boortaqiiska, ayagoo muddo fara badan dagaal faraha la iskaga gubtay la galay dowladdaasi. dowladda Boortaqiiska ayaa waxay isticmaalaysay hubka casriga ah, walow dowladda Ajuuraanka sidoo kale ay haysteen hub casri ah laakiin tiradoodu ay yar tahay. dagaalka markii faraha looga gubtay ayaa dowladda Boortaqiiska waxa ay damacday dagaalada xeebaha ay kala galaysa dowladda Ajuuraanka in ay kobciso oo gudaha dagaalka laga qaadaya ay yareyso. sidaana ninkii la lahaa Tristão de Canta wuxuu dagaal ku qaaday magaalada Baraawe. ciidamadii Baraawe joogay ayaa waxa ay jilbaha u laabteen ciidamadii Boortaqiiska ahaa ee ku soo duulay. waxaan ahay nasiihuhe waxaan ahay dagaalkaasi oo maalmo fara badan qorraxdu intay ugu soo baxday haddana ay ku dhacday ayaa markii dambe Boortaqiiska waxa ay go'aansadeen dhammaan magaalada inay ku gubaan madaafiicdaasi oo laga soo tuurayay dhanka badda. dhammaan wixii ku noolaa magaalada Baraawe xilligaasi way isaga kala carareen. waxaa kaliya oo ku soo haray rag ciidamo military ah oo ay lahayd dowladda Ajuuraanka. maatadiina way isaga baxday magaalada. ciidamadii Boortaqiiska ahaa oo isticmaalayay maraakiib ayaa ku soo siqay magaaladii. dagaal la isla galay fooda ayaa ku dhex maray labadii ciidan maalmo fara badan magaaladaasi. taana waxay sababtay in ciidamadii dowladda Ajuuraanka ahayd oo aanan helin wax gurmad ah in ay gadaal u sikadaan oo ay dib u gurasho sameeyaan. sidaana waxaa magaalada qayb ka mid ah gacanta ku qabtay ciidamadii Boortaqiiska ahaa ee ku soo duulay. waxaan ahay nasiihuhe waxaan ahay nasiihuhe waxaan ahay kadib markii ciidamadii dowladda Ajuuraanka ee Soomaalida ahaa ay dib uga gurteen magaalada ayaa waxaa ciidankii uu hogaaminayay ninka la yiraahdo Tristão de Canta waxa ay bilaabeen in ay bilaqaystaan magaalada ayagoo saameyn ballaaran uga tagay magaaladaasi. kadib Tristão waxa uu damcay maadaama magaalada Baraawe ciidamadii joogay uu dib u riixay inuu sidoo kale qabsado magaalada Muqdisho oo ahayd magaalo madaxda looga talinayay ciidamada dowladda Ajuuraanka iyo sidoo kale dowladda Ajuuraanka fadhigeeda ahaa. laakiin markan warkii ayaa waxa uu soo gaaray madaxdii dowladdii Ajuuraanka oo ayaga u sii diyaar garoobay dagaal ay la galaan dowladda Boortaqiiska. nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayo ku nabadgeli. arrinkaasi markii uu dhacay ayaa waxaa loo sheegay ninkii la lahaa Tristão de Canta in dowladdii Ajuuraanka ay hub iyo saanad fara badan u diyaarisay dagaal ay la gasho ciidankiisa. Tristão de Canta ayaa waxa uu la tashtay ciidankiisii inta badan ciidankana waxa ay u sheegeen in quwadda ciidamada dowladda Ajuuraanka ah ee ku sugan magaalada Muqdisho aysan ahayn kuwa ay u babacdhigi karaan, sidaas darteedna uu iska daayo. laakiin
muddo fara badan oo uu ku taamayay inuu ka madax adkaysto go'aankooda ayaa markii dambe Tiristaw ayaa waxa uu go'aan ku gaaray inuu iska daayo weerarkii uu ku qaadi lahaa magaalada Muqdisho waxaana uu dagaalkiisii u weeciyay magaalo kaleete oo sidoo kale ku taalay geeska Afrika oo la yiraahdo Socotra jasiiradna ahayd dagaalkaasi ayaa waxa uu qaatay muddo fara badan markii dambana ciidamadii Boortaqiiska ahaa waxa u suurta gashay in ay magaaladaas qabsadaan 8 sano kadib ayaa ciidamadii dowladda Ajuuraanka oo dib isu soo abaabulay waxa ay go'aansadeen in heeriyada gumeystaha Boortaqiiska ah ay ka kor qaadaan geeska Afrika kana xoreeyaan magaalooyinka gacanta ay ku hayaan ciidamada Boortaqiiska ciidamada dowladda Ajuuraanka ah oo gacan ka helaya ciidamadii Cuthmaaniyiinta ahaa ee ka talinayay wadanka Turkiga ayaa waxa ay dagaal ku qaadeen ciidamadii Boortaqiiska ahaa ee ku sugnaa magaalooyinka ku teedsan xeebaha geeska Afrika markan ciidamada Boortaqiiska ah waxaa hogaamiya nin la yiraahdo João de Sepúlveda kaasi oo dagaal kala hor yimid ciidamadii isbahaysiga Soomaalida iyo Cuthmaaniyiinta balse cagta ayaa la mariyay ciidamadii Boortaqiiska ahaa sidaana waxa ay gacanta ugu dhigeen dhammaan magaalooyinkii ku teedsanaa xeebaha geeska Afrika kuwaasi oo gacanta ay ku hayeen ciidamadii Boortaqiiska Turkiga waxaa ka yimid nin la yiraahdo Ali Bey oo isna ahaa dhulmareen dagaalkana hogaaminayay waxa uu ogolaaday dhammaan dagaalada ay la galayaan Boortaqiiska in looga xoreeyo magaalooyinka ku teedsanaa xeebaha dagaalkaasi kadib Boortaqiiska waxa uu go'aansaday in mar dambe uusan la dagaalin ciidamada Ajuuraanka ahaa balse muddooyin kadib ayaa damac soo galay Boortaqiiska waxa ay dagaal culus dib ugu soo qaadeen magaalooyinkii ku teedsanaa xeebaha geeska Afrika kuwaasi oo ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda Ajuuraanka balse aynan ahayn dhulka ay ka taliyaan ciidamada Ajuuraanka ciidamadii Ajuuraanka ahaa ayaa waxa ay go'aansadeen inay dib ugu soo ruqaansadaan dhulalkii gacanta ay ku hayeen ciidamada Boortaqiiska wixii intaas ka dambeeyayna dowladii Boortaqiiska ahayd marna kuma aysan soo muhanin inay weerar ku soo qaada ciidamada Ajuuraanka ah tan iyo ilaa ay ka burburto boqortooyadii Ajuuraanka nidarban horo galay niyadaydu waa meel nidarban horo galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayow ku nabadgeli daawadayaal intaa waxaynu ku soo koobaynaa xalqadii afaraad ee aynu uga hadlaynay dagaalkii dhex maray ciidamada Ajuuraanka ah iyo dowladii facweyneyd ee Boortaqiiska taasi oo cashar culus loogu dhigay ciidamada Boortaqiiska hadduu alla ma yadhihin xalqadeena shanaad waxaan uga hadli doonaa weerarkii ay soo qaadeen ciidamada Oromada ah oo ay ku soo qaadeen dhulkii ay ka talinaysay dowladii Ajuuraanka ah iyo sidii ay ugu falcelisay dowladaasi tani intaynu ku kulmayno barnaamijkiisa kale waanigoo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nidarban horo galay niyadaydu waa meel nidarban horo galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayow ku nabadgeli